dawladda aan rabinna si tii farmaajo u dagaalayna wallahi billahi tallahi ka daran baa u dagaalayna inaana ka yeelin beesha Sacad oo kamid ah beelweynta Soomaaliyeed ee degta deegaanada Galmudug ayaa kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen waxa ay kaga hadleen aayaha iyo mustaqbalka beesha iyadoo kulanka sidoo kale u daarnaa cabasho ay ka qabaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud kulanka oo ahaa mid ballaaran oo daba socday kulamo ay horay beesha u qabatay ayaa waxa ka soo qayb galay odayaasha waxgaradka culimada iyo dhalinyarada beesha qaar kamid ah odayaashii kulanka ku sugnaa oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu muddo ka badan 3 bilood uu diidan yahay inuu saxiixo warqad uu ku magacaaban yahay Xasan Axmed Cali Caato kaasoo ay beeshu sheegtay inay la doonayaan kursiga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir kaasi oo hadda uu ku fadhiyo Cali Yare Cali waxayna beeshu sheegtay in arimahaasi iyo warqadda loo gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha gebi ahaanba ka dhaga fariistay sidoo kale odayaashan ayaa madaxweynaha ka dalbaday inuu dhageysto baaqyada ka soo yeeray odayaashii haldoorka beesha sanad kasta bishii 2 jeer 3 jeer buu yimaada soo safal wada abaariyo ka qayb qaatay gurmadkii dagaalka oo hadda wasiil ciidanka joogo dariis u keenay waxyaalo badan buu qabtay haddaan maanta aan anaga beel Sacad inta cusubna hal nin shaqaha noo diidana hadda waxaan arkaynaa dawladdu inaysan rabin dawladda aan rabinna si tii farmaajo u dagaalayna wallahi billahi tallahi ka daran baa u dagaalayna inaana ka yeelin hal qof oo cusubna in maanta lagu diido waa markii saddexaad oo markii labadan ugu qabanno Xasan Caato waxaan rabnaa si degdeg ah aqbaladeena dawladdu markay maqasho in uga soo jawaabto haddii uga jawaabi weydo shirka labaad aan qabanno waxaan ku baaqaynaa shir uga hor imaanayna dawladda annagu Sacad maanta haddaan nahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanaynaa inaad na siisid waa wax Sacad yahay waa taqaanaa aan maamulka ninka noo magacowday ra'iisul wasaaraha Xamse annagu waa madiid niman diidi kara ma nihin laakiin waxa weeye qalinka ninka maanta qalinka noo haya waa Xasan Sheekh Maxamuud waxaan doonaynaa ximintaas haddii gudoomiye ku-xigeenka nabadgelyada waxaan haddii laadmaay amniga inaan wax ka galno waa ogta Sacad haddaana xamintaana sii haddaadan na siinayn xataa meediyaha nagala hadlo waxaad tiraahdaa idin ma astaahishaan Sacad warku moogtaa in lagu khalquusto fiican yahay wixii xilkii dawladda aan ka rabnay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir amniga iyo siyaasadda oo hadda uu hayo nin habargidirihi la yirina waxa lagu wareejin doonaa isbedel baa jira 4 bilood ka hor Xasan Axmed Cali Caato ayaa waraaqdiisa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo midka madaxweynaha labadaba waa ay taala arrintaas jawaab kama aanan helin maalintii dhaweed waan ka hadalnay waxaan codsanaynaa qabiil dhan baan nahay inaan la quursan oo xataa la idin mahayo waa wax heli ma kartaan waa wax nin kale lagu magacaabo waa wax la garan karo madaxweyne waxay ku agtaalaa warqadda Xasan Axmed Caato muddo 3 bilood ah Xasan Cali Caato waa nin samafala waa ninkii dhisay isbitaal Jazeera waa ninkii dhisay isbitaallo badan waa nin ka shaqeynaya muddo samafal ah waa nin adaa magacaado dalku wax ku soo kordhinaya dad badan oo dalkii dadku wax ku soo kordhinaya dhib maahan ayaa maalin kasta magacaawda war dalka waxa baabiyay qof kasto aqoon leh waa ka tagaysaa nin waxba ahaan adaa magacaado dadkii aqoonta lahaa siya mashaariic u keenayaan sidee ummad wax u qabanayaan madaxweyne ninka CV-giisa dib u fiiri wuxuu qabta soo dib u fiiri wuxuu qabtay iyo wuxuu dalku u soo kordhinaya adaa magacaado dib u fiiri waana dalku wax ku soo kordhinaya ha magacaabin qof aad dalku wax ku soo kordhineen madaxweyne beeshan ahayd ama mudnayd inuu madaxweynuhu garanayn beeshan taariikh bay leedahay miisaanka leedana wuu yaqaanaa in horena waan u hadalnay shirweyne horena waan ku baaqnay kana waa shir kaloos lakii weynaana waa soo socdaa haddaan isagana sii cilaaminayaa oo beesha isku imaanayso laakiin maanta aan cabanno maanaan jeclayn laakiin waan ka firsan weyn waxaan ka cabanaynaa qalinka madaxweynuhu hadduu gobolka Mudug iyo dad ka soo jeeda ama beesha Sacad uu ka maarmay ama aan loo shaqeynayn aanu rimish loo shaqeynteeda de uu noo sheegi kara laakiin waxaan xaq dawladda ugu lahayn waan ka rabnaa waxaan arkaynaa dhaqankii dawladdii hore nagula dhaqmaysay oo magaciisa naqaanay ama wixii nagula dagaalaysan naqaanay oo magac lahaa ay tiina sii socoto Anas Maxamed Soomane Somali Cable
muqdisho. dowladda aan rabinna si tii farmaajo oo dagaalayna wallahi billahi tallahi ka daran baa dagaalayna inaana ka yeelin beesha Sacad oo kamid ah beelweynta Soomaaliyeed ee degta deegaanada Galmudug ayaa kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen waxa ay kaga hadleen aayaha iyo mustaqbalka beesha iyadoo kulanka sidoo kale uu daarnaa cabasho ay ka qabaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. kulanka oo ahaa mid ballaaran oo daba socday kulamo ay horey beesha u qabatay ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaasha waxgaradka culimada iyo dhalinyarada beesha. qaar ka mid ah odayaashii kulanka ku sugnaa oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu muddo ka badan 3 bilood uu diidan yahay inuu saxiixo warqad uu ku magacaaban yahay Xasan Axmed Cali Caato kaasoo ay beeshu sheegtay inay la doonayaan kursiga gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir kaasi oo hadda uu ku fadhiyo Cali Yare Cali. waxayna beeshu sheegtay in arimahaasi iyo warqadda loo gudbiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu madaxweynaha gebi ahaanba ka dhaga fariistay. sidoo kale odayaashan ayaa madaxweynaha ka dalbaday inuu dhageysto baaqyada ka soo yeeraya odayaashii haldoorka beesha. sanad kasta bishii 2 jeer 3 jeer buu yimaadaa soo safal wada abaarihi ka qayb qaatay gurmadkii dagaalka oo hadda wasiil ciidanka joogo Idriis oo keenay waxyaalo badan buu qabtay. haddaan maanta aan anaga beel saac inta cusubna halin shaqaha noo jeedana hadda waxaan arkaynaa dowladda aysan rabin dowladda aan rabinna si tii farmaajo oo dagaalayna wallahi billahi tallahi ka daran baa dagaalayna inaana ka yeelin hal qof cusubna in maanta lagu diido waa markii saddexaad oo markii labadan ugu qabanno Xasan Caato waxaan rabnaa si degdeg ah aqbaladeena dowladdu markay maqasho inay uga soo jawaabto haddii uga jawaabi weydo shirka labaad aan qabanno waxaan ku baaqaynaa shir uga hor imaanayna dowladda. annagu Sacad maanta haddaan nahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan kaa codsanaynaa inaadna siisid wax Sacad yahay waa taqaanaa aan maamulka ninka noo magacowday ra'iisul wasaaraha Xamse annagu waa niman diidi kara ma nihin laakiin waxa weeye qalinka ninka maanta qalinka noo haya waa Xasan Sheekh Maxamuud. waxaan doonaynaa ximintaas haddii gudoomiye ku-xigeenka nabadgelyada waxaan haddii laadmaay amniga inaan wax ka galno waa ogta Sacad haddaana xamintaana sii haddaadanna siinayn xataa meediyaha nagala hadalo waxaad tiraahda idimas ma astaahishaan Sacad warku moogtaa in lagu khalquusto fiican yahay. waa wixii xilkii dowladda aan ka rabnay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir amniga iyo siyaasadda oo hadda uu hayo nin habargidirihi la yirina waxaa lagu wareeji doonaa isbedel baa jira. 4 bilood ka hor Xasan Axmed Cali Caato ayaa waraaqdiisa xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo midka madaxweynaha labadaba waa ay taallaa. arrintaas jawaab kama aanan helin. maalintii dhawada waan ka hadalnay waxaan codsanaynaa qabiil dhan baan nahay inaan la quursan oo xataa la idin maayo waa wax heli ma kartaan waa wax nin kale lagu magacaabo waa wax la garan karo. madaxweyne waxay ku agtaallaa warqadda Xasan Axmed Caato muddo 3 bilood ah. Xasan Cali Caato waa nin samafalaa waa ninkii dhisay isbitaal Jazeera waa ninkii dhisay isbitaallo badan waa nin ka shaqeynaya muddo samafal ah waa nin adaa magacaado dalku wax ku soo kordhinaya dad badan oo dalkii dadku wax ku soo kordhinaya dhib maahan ayaa maalin kasta magacaawda. war dalka waxaa baabiyey qof kastoo aqoon leh waa ka tegaysaa nin waxba ahayn adaa magacaado dadkii aqoonta lahaa sidee mashaariic u keenayaan sidee ummad wax u qabanayaan. madaxweyne ninka CV-giisa dib u fiiri wuxuu qabta dib u fiiri wuxuu qabtay iyo wuxuu dalku u soo kordhinaya adaa magacaado dib u fiiri waa nin dalku wax ku soo kordhinaya ha magacaabin qof aad dalku wax ku soo kordhineen. madaxweyne beeshani ahayd ama mudnayd inuu madaxweynuhu garanayn beeshan taariikh bay leedahay miisaanka leedana wuu yaqaanaa. in horena waan u hadalnay shirweyne horena waan ku baaqnay kanna waa shir kaloo isla kii weynaana waa soo socdaa haddaan isagana sii cilaaminayaa oo beesha iskugu imaanayso laakiin maanta aan cabanno maanaan jeclayn laakiin waan ka firsan weyne. waxaanu ka cabanaynaa qalinka madaxweynuhu hadduu gobolka Mudug iyo dad ka soo jeeda ama beesha Sacad uu ka maarmay ama aan loo shaqaynahayn aanu rimish loo shaqaynteeda dee u noo sheegi kara laakiin waxaan xaq dawladda ugu lahayn waan ka rabnaa. waxaan arkaynaa dhaqankii dawladdii hore nagula dhaqmaysay oo magaciisa naqaanay
ama waxay nagula dagaalaysaan naqaanay oo magac lahaa ay tiina sii socoto. Anas Maxamed Soomane, Somali Cable, Muqdisho.